shirka wadatashiga qaran oo ay ka qayb galayaan madaxda maamulada iyo ra'iisul wasaare Roble ayaa ka furmay teendhada Afisyooni ee magaalada Muqdisho. Shirkan ayaa ka duwan shirarkii hore waxaana uu ku soo aadayaa iyadoo maamulada qaar bilaabeen doorashadii aqalka sare. sidoo kale wuxuu jawigu ku soo beegmayaa iyadoo ay kala taagan yihiin guddiga doorashada ee heer federaal iyo madaxda maamul goboleedyada. ra'iisul wasaare Roble ayaa isha lagu wada hayaa. dhowaan musharaxiinta mucaaradka ee ku midaysan golaha midowga musharaxiinta ayaa ra'iisul wasaaraha weydiistay inuu ballaariyo shirka soo socda oo kaalintooda la siiyo, laakiin ra'iisul wasaaruhu kama uusan soo jawaabin soo jeedintaas. dalabka midowga musharaxiinta waxaa loo fahmay inay burburtay madashii badbaado qaran oo markii hore ay Siciidani iyo Axmedoobe ku matali jireen golaha wadatashiga qaran, laakiin waxyaabaha ay hadda masuugsan yihiin ayaa waxaa ka mid ah sida ay labadaasi hogaamiye u maamuleen doorashadii aqalka sare ee dhowaan ka dhacday maamuladooda. haddaba yaa diiday inay midowga musharaxiintu fursad u helaan ka qaybgalka shirka maanta furmay. golaha midowga musharaxiintu ma helin wax jawaab oo arrintan la xiriira oo bannaanka taalla, laakiin ra'iisul wasaaraha ayaa la sheegay inuu ka gaabsaday arrintan kadib markii ay maamul goboleedyadu diideen in la soo farageliyo habsami u socodka iyo qorshooyinka golaha wadatashiga qaran. waxaa lagu tilmaamay mowqifkii koowaad ee shanta maamul goboleed isku raacaan. dhowr bilood ka hor Siciidani iyo Axmedoobe waxay qabeen in madasha la ballaariyo oo kulamada loo oggolaado midowga musharaxiinta, laakiin markii koowaad ayaa la sheegay inay taageereen inay kooxdaasi dibajoog ka noqoto dooda taagan. tani waa astaanta sheegaysa inay kala tageen mucaaradka Muqdisho fadhiya iyo hogaamiyaasha labadaasi maamul ee ay markii hore isku dhiibeen. madaxda Galmudug iyo Koonfur Galbeed waxaa la sheegay inay ku doodeen in mucaaradka saldhigoodu yahay hotelka Jazeera ee magaalada Muqdisho inay markii hore shirarkan u wakiisheen Dani iyo Axmed Madoobe, haddana ay ku qasban yihiin inay iyaga u soo dhiibaan fariimahooda. inay kala tageen iyo in kale waxba kama quseeyaan lafta gareen iyo qorqor. waa dharbaaxo weyn. waxay muujinaysaa in xubnaha midowga musharaxiintu meel cidlaha ku soo dhaceen oo ay dhammaan maamul goboleedyada albaabada ka xirteen. mucaaradka waxaa hadda loo ogol yahay inay warqad ku soo qoraan waxyaabaha ay rabaan kadibna ay golaha u soo gudbiyaan si loo arka dareenkooda. madaxda maamulada iyo ra'iisul wasaaruhu waxay u muuqdaan inay ku guulaysteen inay si weyn hoos ugu dhigaan saamaynta siyaasiga ah ee xubnaha midowga musharaxiinta, kuwaasoo hadda marti ka ah marxaladda kala guurka ah ee Soomaaliya. shirka maanta ka furmay magaalada Muqdisho. shirka caasimadda ka furmay oo diiradda lagu saarayo maamulka dhaqaalaha doorashada iyo habraacyada aqalka hoose ayaa sidoo kale waxaa maamulada qaar la sheegayaa inay ka fakarayaan in wax laga bedelo heshiiskii 17 Sebteembar, gaar ahaan tirada ergada. waxaa jirta aragti ah in la dhimo ergada. hogaamiyaasha maamul goboleedyada ayaa sidoo kale doonaya inay iyagu qaataan magacaabista xubnaha soo qoraya ergada kursi walba oo ka mida kuraasta aqalka hoose, taas oo ay si weyn uga soo horjeedaan dhammaan dhinacyada kale. maxay kula tahay?